بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام ما بني بالله بدايه 10 كان سدهات oo ah wada sheekaysi ama wada hadal lesson 1 iyo 2 horaan qaadanay 10 kama baabiinay lesson 3 ma ba sheekaysaday ardayga A iyo B qofna su'aalada wada qofna ku jawaabay marka soo dhawaada 10 keena hadii la heedno caawa ma ba leeyahay ardayga A since practice without topics like tea without sugar, how do you see if we talk about love relating matters? Since madam practice without topic wada sheekaysi ciwaan la'aan mase mawduuc la'aan is like ay la mid tahay tea without sugar shaah sukar la'aan how do you see saying aragaasa if we talk about hadii uu ku hadalna ama if we talk about or discuss about lamada bool isticmaaleen if you talk about hadii uu ku hadalna talk about ka hadlid ama ka sheekayn love relating matters arrimaha jacaylka la xiriira love relating matters waa arrimo relating la xiriira ama quseeya love jacaylka love relating matters arrimo jacaylka la xiriira hadii uu ku hadalna sayang aragaasa since madam practice without topic wada sheekaysi mawduuc la'aan is like ay lama tahay tea without sugar or shaah sukar la'aan how do you see saying aragaasa if you talk about hadii uu ku hadalna love relating matters arrimaha jacaylka la xiriira being billah let the cat be out of the bag waleedahay hadii way release what you have waleed maskanta ka hayta soda being billah let the cat be out of the bag waleedahay hadii way soda waxay ahayso billah for a long time waqti hore I was hesitating mabaka lamlamayay to tell you inaan kin sheeg my love jacaylkayga availing myself ana naftay ugu faa'iideeyo of this opportunity fursadani I request you mabaka codsaday to do favor for me in ahsan in samaysmas abaal ingal and act true love with me jacayl dhabeyn ila jilaya ku codsaday for a long time waqti hore I was hesitating mabaka lamlamayay to tell you inaan kin sheeg my love jacaylkayga availing myself ana ugu faa'iideeyo naftay of this opportunity fursadani uudan meesha oo uudan maka jarta qoraalka ana markaan qoraya qaladi uudan maka jarta this opportunity lewa uudas kale waa extra waa dheeri waa qalad waa of this opportunity fursadan I request you to say to do favor for me in ahsan in samayt and act true love with me oo jacayl dhaban ila jil ya ku codsaday waa oo wali la qabat may ba maadaama aan ka jeelin Bimble stop Georgie here we are here for education antama baan roognahay waxbarasho stop Georgie dhaaf walaal leeta we are here halkuma baan for education waxbarasho not for love acting jacayl min roogna not for love acting waa jacayl min roogna waxbarasho roogna on the other hand dhanka kale I mean intaas midilaha guduba it is unwise for you doqonnimaki ata masnacsanimaki ata to wash inaad ka dhaqdo your dirty liner dharka wasakhaysan to wash inaad ka dhaqdo your dirty liner wa dharka wasakhaysan inaad ka dhaqdo liner hada dharaameylanka jart in public dadweynaha dhaxdooda ama dad koorto inta dharka wasakhay ka meerto ka dhaqdana doqonnimaki ata wa hadal sabab ma waxaan oo kale in dad koorto ka sheegdo oo qof dhow meelaha suuqyada boo jecel ila jiro la saartay doqonnimaki ata it was said nimba horleen aray ama horleen sheegay mama andoonade it was said nimba horleen aray fortune comes once fursad hal mar ka maras fortune comes once fursad hal mar ka maras if you don't make use of hadaan ku faa'iideysan this chance fursadani you may lament for me tomorrow ma baa in ala doonta maalinta bari lament wa ala alit it was said never really fortune comes once fursad hal mar kuwaas if you don't make use of this chance hadii fursadani aad ku faa'iideysana you may lament for me tomorrow ma baa in ala doonta maalinta bari yimbaleh I don't care about olma oqosay I don't care about olma oqosay it is up to you adikin taal adika qosay it is up to you adikin taal taasana olma ogolan I don't care about أن الموضوع والموضوع it is up to you أديك إنت الله إنتهى قبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.